بسم الله الرحمن الرحيم horta dee meel kastoo la joogaba dadkan waxa loo baahan yahay si sharaf iyo aqli ku jira in loo hadlo waxa weeyaan wax bilaadanka isku dira oo dhibaato ay ka dhacayso oo aan wanaagsanayna inaad ku hadashaa ma wanaagsana haddii aan xagga dhaqanka waxoogaa kaaga sheego raggii hore waxay yidhahdeen kow baa ugu xun horta waxaba ilaahay nama tusee waa ilaa sideed mahmahdaas kow baa ugu xunoo qof miyi iyo magaalo midna dibacadiis raacin weyda baa ugu xun labaa ugu xunoo laba ruux oo isqaba oo kalsoonidii ka luntay oon is aaminsanayn labadaasaa ugu xun saddex baa ugu xunoo laba hablood iyo hooyadood oo saddexdiiba la isku soo furo saddexdii gamba iskaga khaldantay saddexdaasaa ugu xun afar baa ugu xunoo afar nin oo walaalahoo nina nin la tishan waayey shan baa ugu xunoo shan nin oo gar loo saaray oo gar eexa isku raacday oo midna midka kale odhan warkaasi waa dulmiye meeshii ka daa shantaasaa ugu xun lix baa ugu xunoo lix wadaadoo ay salaadi gaadhay oo midna mid ku xidhan waayey oo mid waliba midka kale uu yidhi warkaasi waa ciddaa kaasina waa tuman weyn kaasi waa kaa ku xidhan maayo oo miidhana oo mid waliba gaadh ku tukaday toddobaa ugu xunoo toddoba ninoo xil loo dhaariyo xilkiiba garan waayo dhan ay kaga qabtaan horta wixii laynoo dhaariye maxay ahaayeen oo mid waliba wixii dhinac maray dhaartuu u maray sideedna waxaa la yidhi sideed baa ugu xunoo sideed qof oo islaama oo meel isugu yimi oo mar qura odhan waayo war allaha laga yaabiyo nebiga ha lagu salliyo midna oo intay wuxuun xanteen kala tegey sideedaasaa ugu xun war bal ha la iska ilaaliyo wixii xune aan wanaagsanayn mahmaadooda ku soo celi mahmaadooda maya mahmaadii hore haddaan ku soo celiyo waxay ahayd saddex ha la iska ilaaliyo waxaad ku ceebowda iska ilaali wax laga naxana iska ilaali wax lagugu caayana iska ilaali